السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة الكمركة لسود واضح أدي هذا ومهستهين وقميص أياسي بحيث جمعنا ويسوق ليسا أنا قولي سدي تبانكي بيشا أي نوتة هاي dadka qaarna 19 ayay u tahay bisha 12aad ee December sanadka 2025 maanta muuqaalkan waa kii saddexaad oo aan soo geliyo wararka maanta waa iska soo daba dhacayaan muuqaalkan marka dhamaysato laba muuqaal oo kale ayaa ka horeysay hadii aad fursad hayso iyagana bal dib u soo daawo mid wareysi ah iyo mid warbixino kale oo muhiim ah ay ku jiraan madaxweyne Trump Soomaalida mar kale ka hadlay musuqmaasuqeeda ayaa ku jira laakiin muuqaalkan waxaan uga hadlayaa ceeb Allah astura hadii aad maqashaan ceeb ma asturna leeyahay Trump maalmahan ayaa Soomaalida laga celin la u dhahayay Minnesota wada musuqmaasuq ayay ka dhigeen maanta Soomaali cusub ayaa dacwada la xiriira musuqmaasuq hadana lagu soo oogay gobolka Minnesota waxaan ogeyn inay baaritaano socdeen la xiriiray lacagtii Medicaid-ka oo la musuqmaasuqay gaar ahaan qaybtii guryaha loogu talagalay dadka guryo la'aantu hayso daraagiska qabatimay oo laga dhaqayay in guryo loo raadiyo qayb kalena waxay ahayd autism-ka caruurta la xanuunsanaysa autism-ka in iyagana lacaga lagu bixin jiray la musuqmaasuqay labadiiba dacwado ayaa maanta lagu soo oogay dad Soomaali u badan arrimahaasi ayaan idin la wadaagaya balse ilaa ay hadda midda housing-ka oo Medicaid-ka 14 qof ay yihiin dadka dacwada lagu soo oogay maanta 6 kamid ah ayaa lagu dhawaaqay oo 3 kamid ah ay Soomaali yihiin waxa kamid ah oo ugu horeeyo dhalinyaradan soo socoto aan idin la wadaagayo laakiin waxa yiri lacag 18 milyan ah ayaa intooda badan la musuqmaasuqay haddana waxa uu sheegay in barnaamijyo badan oo gobolka uu maamulayo oo ilaa 14 barnaamij oo kala duwan ah hadda hakad la galiyay markii looga shakiyay in musuqmaasuq ay ka jiraan barnaamijyadaasi marka waxa ugu horeeya dhalinyarada amaba dadka Soomaalida ah ee dacwada lagu soo oogay ninka la yiraahdo Xasan Axmed Xuseen iyo waliba Axmed Cabdirashiim Maxamed labada nin waxa ay iska lahaayeen company la yiraahdo Pristine Health LLC waxana ay qaateen lacag gaaraysa 750,000 oo dollar lacag ka badan oo Medicaid ah ayay qaateen waxay dhahayeen barnaamijyo adeegyo ayaan u qabanaynaa dadka guryo la'aanta oo guryo aan u raadinaynaa laakiin lacagtaasi way iska soo dalacdeen oo adeegaasi gabi ahaanba ma aysan qabanin laakiin way ku tamashla tageen lacagahaasi oo waxa la leeyahay vacationo ayay ku baxeen oo ay ku tageen wadamo ay kamid yihiin Ingiriiska Australia Turkiga Dubai magaaladaasi iyo Saudi Arabia meelo kamid ah talo ma ku soo xajiyeen mise waa ku cimreysteen lacagtaasi ma garan kara laakiin Saudi Arabia inay meelo kala duwan ay ka tageen ayaa la sheegay marka waxa la leeyahay adeegyada ay sheeganayeen inay u qabanayaan dadka u baahan ma aysan u qabanina lacagtaasi way iska qaadanayeen marka waxa la xaqiijiyay hadda in labadaas nin ay ku jiraan dadka dacwada lagu soo oogay waxa jira nin kale oo isaguna Soomaali ah oo la yiraahdo in Kamil Umar Salah waxa isaguna oo lahaa company la yiraahdo Safe Lodging Inc company-gaasi ayuu isagu iska lahaa uu u diiwaan geliyay isaguna in adeegyadaas uu ku bixinayo isagana waxa ku maqan lacag dhan 1.4 milyan oo dollar ayuu qaatay waxa la leeyahay 150,000 oo kamid ah lacagtaasi oo dollar cryptocurrency ayuu ku maalgashtay iyo waliba lacaga kale oo noloshiisa uu wax ugu qabtay dacwadayaashu waxay sheegeen Salah inuu wadanka hadda isaga cararay oo maqan yahay ninkaasi waa baxaw malaynaya kulay Soomaaliya ka dhacay kadib markii uu ogaaday in baaritaankan lagu soo socdo oo xeerbeegti federaal ah ay dacwad ku soo oogi rabaan ayuu ninkaasi gabi ahaanba wadanka isaga baxay oo waa uu ka cararay marka ninkaasi waa uu maqan yahay iyadoo ay muuqanayso marka hadda in isagu uu kamid yahay dadka dacwadahaasi lagu soo oogay Joe Thompson waxa uu yiri dadka ilaa ay hadda dacwada lagu soo oogay arintan Medicaid-ka gaar ahaan dadka guryaha loo raadinayay waa 13 qofood waxaan uu yiri baaritaanku waa wali waa u socdaa todobaadyada ee bilaha soo socdana dad kale ayaa dacwada lagu soo oogi doona isagoo arrimahaasi ka hadlaya markii uu ku dhawaaqayay dacwadaha lagu soo oogay dadkan Soomaalida ah waxa uu yiri We're announcing charges against 5 new defendants in the investigation of fraud in the Housing Stabilization Services Medicaid program here in Minnesota. The first indictment, United States versus Hassan Ahmed Hussein and Ahmed Abdirashim Mohammed, involves the owners of Pristine Health LLC, a housing stabilization services company here in Minnesota. These two defendants enrolled in the Housing Stabilization Services program, purportedly to provide services helping people who were facing housing instability
find and maintain stable housing. They did no such thing. Instead, they submitted fraudulent claims to Medicaid for services that they did not actually provide to those individual clients. In all, they obtained more than $750,000 in Medicaid payments through their fraud scheme, much of which they used for pretty extensive international travel, including to London, Sydney, Australia, Istanbul, Turkey, Dubai, and several locations in Saudi Arabia. The second case being announced today is United States versus Kamil Omar Salah, the owner of Safe Lodgings, Inc., another housing stabilization services company. As with the other defendants, Mr. Salah enrolled in the housing stabilization program and began claiming to be providing housing stabilization services to people that were leaving drug and alcohol rehabilitation facilities. Again, he did no such thing. Instead, he just submitted fraudulent claims for services that he never provided. He submitted more than $1.4 million in fraudulent Medicaid claims, which he used to purchase more than $150,000 in cryptocurrency, as well as to fund his lifestyle. We learned recently that Mr. Salah, after his company received a grand jury subpoena for records related to its participation in the Housing Stabilization Services program. Now, to date, we have charged 13 people for their role in the scheme to defraud the Housing Stabilization Services program, and that investigation remains very much ongoing. We expect additional charges in the coming weeks and months. dhinaca kale xeeralyaha dowladda federaalka u qaabilsan gobolka Minnesota waxa uu sidoo kale ku dhawaaqay qofkii labaad oo dacwad la xiriirta arrinta Medicaid-ka laakiin dhinaca autism-ka caruurta la xanuunsan autism-ka in maanta uu isaguna ku dhawaaqay waxa uu sheegay in wiil nin lagu magacaabo Cabdinajiib Xasan Yuusuf uu yahay qofkii labaad ee dacwad la xiriirta dhinaca autism-ka lagu soo oogay isaguna waxa uu iska lahaa company la yiraahdo Star Autism Center oo ku taala St. Cloud, Minnesota waxaana sidoo kale uu waalidiinta siinayay lacag si caruurtooda ay uga baaraan inay qabaan xanuunka autism-ka haddii laga helana markaas kadib uu ka diiwaan gelinayay xaruntiisa sidaas darteed ayaa waxa uu isaguna sheeganayay in adeegyadaasi uu u qabanaya caruurta isla markaana xitaa caruur aan u baahnayn oo aan xanuunsanayn inuu lacag ku qaadanayo lacag $6 milyan ayuuna qaatay waxa uu ku iibsaday gaari traag ah lacag $100,000 lacag $200,000 waxa uu u diray wadanka Kenya waa kan xeeralyaha dowladda federaalka u qaabilsan gobolka Minnesota Joe Thompson markii uu ku dhawaaqay dacwadan lagu soo oogay Cabdinajiib Xasan Yuusuf. I also want to announce some updates in the fraud scheme, or the scheme to defraud the Early Intensive Development and Behavior Intervention for Autism program, another Medicaid program here in the state of Minnesota. Today we unsealed charges against the second defendant charged in the case, Abdi-Najib Hassan Youssef, who owns Star Autism Center in St. Cloud, Minnesota. Mr. Youssef, like others involved in the autism scheme, paid kickbacks to parents to have their children diagnosed with autism spectrum disorder and enrolled to receive EIDBI services at his autism center. Based on these fraudulent claims for services that were not provided, and in many cases were not needed, he received more than $6 million in Medicaid funds. He used some of those proceeds to purchase a semi-truck for $100,000, and he also sent more than $200,000 to Kenya. sidoo kale saaka saacadu markay ahayd 4:15 subaxnimo waqtiga gobolka Minnesota waxaa dambigeeda qiratay Caasho Faarax Xasan oo haweeneydii ugu horeysay oo lagu soo ogo dacwad la xiriirta kiiskan Medicaid-ka gaar ahaan caruurta la xanuunsan autism-ka dhowr bilood ka hor ayaa iyadana dacwadaasi lagu soo ogay saaka ayay dambigeeda qiratay waxay iska lahayd company-ga la yiraahdo Smart Therapy LLC oo fadhigiisu yahay magaalada Minneapolis waxay haweeneydan sidoo kale ku lug lahayd kiiskii musuqmaasuqa ee Feeding Our Future oo caruurta in lagu quudiyo xilligii coronavirus-ka loogu talagalay dhinaca autism-ka Medicaid-ka waxay ka lunsatay lacag gaaraysa $14 milyan halka dhinaca Feeding Our Future-na lagu eedeynaya inay lunsatay in ka badan $450,000 Mareykanka inta badan lacagahaas waxay u dirtay Kenya oo guryo ay uga iibsatay waa kan xeeralyaha
dowladda federaalka u qaabilsan gobolka Minnesota Joe Thompson markii uu ku dhawaaqayay dambiga ay qiratay Aasha Faarax Xasan. Earlier this morning at 10:30, the first defendant charged in the autism fraud scheme, Aasha Farah Hassan, pled guilty. As you may recall, Ms. Farah was the owner of Smart Therapy LLC, a Minneapolis-based autism clinic. Through her clinic, she participated in both a scheme to defraud the EIDBI program, as well as a scheme to fraudulently obtain federal child nutrition program funds under the sponsorship of Feeding Our Future. Through these fraud schemes, Ms. Hassan received more than $14 million in Medicaid payments and more than $450,000 in federal child nutrition program funds, of which she sent at least hundreds of thousands of dollars to Kenya, which were used to purchase real estate. sidoo kale waxaa jirta laba nin oo kale oo iyaguna gobolka Pennsylvania inta ay ka soo tageen Minnesota ay tageen kambaniye ay samaysteen kadib markii ay ogaadeen in lacagaha la iska xabsanayo gobolka Minnesota in lacago fara badan oo 3.5 milyan ay qaateen. labadaas nin lama oga cadaan iyo madow qofka ay yihiin inkastoo sawiradooda aan la soo bandhigin. waxaa lagu kala magacaabaa Anthony Wendell Jefferson iyo Lester Brown. iyagana dadka dacwadaha lagu soo ogay ayay ku jiraan oo Pennsylvania ayaba ka soo tageenoo waxay tageen Minnesota si lacagahaasi ay u musuqmaasuqaan. sidoo kale xeeralyaha dowladda federaalka u qaabilsan gobolka Minnesota waxa uu sidoo kale sheegay in saaka goobo cusub la baaray oo FBI-du ay baartay waraaqa warranty iyagoo wata. barnaamijka saaka la baaray waxaa la yiraahdaa Integrated Community Support ama ICS ayaa loo soo gaabiyaa. waxaa loogu talagalay dadka guryo la'aanta ah in loo raadiyo iyagana guryo ama dadka lixaad kale ee curyaanka in guryo loo raadiyo guryahaasi oo ay ku nagaadaan. waxa uu sheegay barnaamijkan oo sidoo kale Medicaid-ka ay fangareyso 2021 in Minnesota laga bilaabay isla markaana loogu talagalay 4.6 milyan oo ku bilowday laakiin 2024 170 milyan oo gaaray hadda oo sanadkii 2025 oo sii dhamaanayana 180 milyan oo marayo. marka waa meelo cusub oo saaka la baaro baaritaana lagu sameeyay FBI-du ay baartay. barnaamij kale oo isaguna federaal ah oo la musuqmaasuqay Soomaali ma ku jiri doontaa dadka dacwadaha lagu soo ogayo oo baaritaanku ku socdo lama ogo laakiin arrintan waa arrin kale oo cusub oo saaka goobo cusub oo la baaray ayaa xeerlaaluhu uu ku dhawaaqay. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo.